waxaa dhici doona 9 kulan oo Champions League ayaa dhici doona kooxahana waxay isku arki doonaan sida tan Ajax iyo Benfica ayaa is arki doona Galatasaray iyo Union SG-na way wada ciyaari doonaan Bodo Glimt Juventus ayay la ciyaari doontaa Chelsea iyo Barcelona way wada ciyaari doonaan Manchester City Leverkusen ayay la ciyaari doontaa Marseille iyo Newcastle way wada ciyaari doonaan Napoli iyo Karabakh way wada ciyaari doonaan Slovan Prague iyo waxa wada ciyaari doona Athletic ayaa wada ciyaari doona laakiin ciyaarta ugu muhiimsan oo rabna inaan soo qaato waa ciyaarta dhexmari doonta Chelsea iyo Barcelona taasoo ka dhici doonta Stamford Bridge caawa ilaahdi oo karaal noqdo laakiin waxaan rabaa inaan ku hormaro ciyaartii dhexmartay kooxda Everton iyo Manchester United ayaa rabaa inaan wax ku hormaro ciyaartaas haddii aan wax yar ka hadlo waxaan rabaa inaan ka hadlo ciyaaryahanka Idris Gaya calaamada guduuda oo loo taago oo qaata kadib markii asiga iyo Michael Keane oo difaacahay muran oo dhexmaray taasna waxay ahayd kubad oo Bruno Fernandes oo ku sigay kooxda Everton oo ka dhala rabtay taasoo kubadda oo ciyaaryahankan Idris Gaya waxaan la soconaa ciyaaryahan dhexda ka dhiro waana ciyaaryahanada Premier League dhexda ka dhiro ciyaaryahanada ugu dhaqaaqa badan ugu orodka badan ayuu kamid yahay waxaan la soconaa ciyaaryahankan in Everton oo ka tagay markiisa hore oo uu dhashay wadanka Senegal oo aada dhankaas iyo PSG inuu ka aaday oo lacag badan lagu gatay hase yeeshee dib inuu ugu soo noqday kooxda Everton kooxdaas oo ka tirsanaa in muddaana oo joogay si kastaba ahaatee kubad ayuu ka daba yimid oo xariiqinta 18 oo ka gooyay kooxda Manchester United kubadiina wuxuu u dhiibay markuu ka gooyay ayuu wuxuu u dhigay Michael Keane hase yeeshee Michael Keane oo difaacahay waxa u malaysaa in xoogay oo daahidii oo daahana Bruno ayaa yimid oo kubadii ayuu meeshaas ku toogtay goolka ayuu toogtay kubadiina way sigatay oo waxay ahayd kubad in laga dhaliyo ay u badneed hase yeeshee banaanka ayay ka martay taasna waxay keentay in Idris Gaya uu ku xanaaqay Michael Keane oo dhahay maxaa dhacay murankaas dhexmarana kadib inuu gacalka hadal isu bedelay oo meeshaas lagu siiyay calaamada guduuda oo waxaan la soconaa in horay arintan oo kale ay u dhacday oo laba ciyaartoy oo Premier League ka wada dheeri jiro isku kooxaha Newcastle ka wada tirsanay ciyaar dhexmartay Newcastle iyo Villa ayay ahaayeen oo Daya iyo ciyaaryahankii Liboy League inay garoonka isku feereen taas ayaa ugu taariikh weyneed ugu xumeed hase yeeshee feer weyn ma dhexmarin hase yeeshee wax weyn ayaa dhici lahaa haddii uusan goolhayaa Beckford uuna soo gelin maxaa sababay kooxda Manchester United in ay barbardhac in hal eber looga adkaado taasoo gool aad u qurux badan xarqad 18 banaankeeda Dewsbury Hall oo ka dhaliyay waxaan la soconaa ciyaaryahankan inuu ugu yimid kooxda Leicester inuu ka yimid markay dhacday inuu City oo ku soo beeray kooxdan Everton si kastaba ahaatee aad ay isu difaacayeen 10 markay noqdeen 11 markay ahaayeen wayba ka fiicnaadeenba hase yeeshee Amaron waxa u malaysaa in kooxda uu ku dhisay difaac inuu ku dhisay hase yeeshee 10 ciyaartoy oo 13 daqiiqo markii la joogay laga saaray ciyaartoy si fudud inay uga badiyaan inkastoo kubada ay ku gameen oo goolhayaha oo ka badbaadiyay Bedford haddana si fudud ayay uga badi kareen oo gool badan ay ka dhali kareen sida lagu yaqaanay Manchester United taariikhdooda qaybaha dambe ay soo kici jirtay ee goolal badan kooxaha ka dhali jirtay laakiin Ma United hore oo taariikhda lahayd meesha ma joogto sababta ugu weyn waxay ahayd kooxda waxay ku dhisnayd difaac ay ku dhisnayd oo waxaan la soconaa saddex dambe inay gadaal ay joogeen oo Yoro iyo Delete iyo Luke Shaw inay joogeen ay dul saarnaayeen Doko iyo Masarawi inkastoo Masarawi oo bedelay Dokona inuu bedelo ayay ahayd kaasoo dhinacaas waxba ka imaaneen kooxdan waxaan la soconaa inay garba aysan qabin oo kubada ka soo gala taariikh ahaanna waxaa la soconaa Manchester United inay ahayd koox garba fiican haysato Giggs dhinac inuu ka socdo dhinaca kale David Beckham inuu ka socdo weligoodba inay garbaha ay ka ciyaari jireen oo Ronaldo xataa numberka 7 uu uga ciyaari jiray xilligii dambe oo weligood garbaha ay wax ka soo geli jireen kubada ka soo geli jireen goolna ay dhali jireen hase yeeshee Amaron inuu galbihi oo baabi'iyay taasna waxay keentay in kooxdii ay wax abuuri weyso goolna ay dhali weyso ayay keentay marka waa taariikhdii ugu xumeed Manchester United oo soo marto Amaronna sida aan isleeyahay koox xoogan oo weerar ku socoto inuu ka adkaado waa dhici kartaa laakiin kooxahan yar oo u yimaado oo gadaal u galo way adag tahay sida uu jibi oo gadaal uga soo saar taasna waxay keenaysaa
inuu dhibco badan oo ku dhumeeyo ayay keenaysaa oo kooxda marka aad rabtid in aad ka badisid waa inaad weerar ah ku qaadaa. waxaan la soconaa cayaartii Tottenham iyo dhexmartay Arsenal, Tottenham inay ku timid inay difaac ay gasho, hase yeeshee qaybtii horeba 2 gool ayaa laga dhaliyay oo difaacoodii meeshaas ayaa lagu jibiyay. kooxaha kuma marsiyo karaan kooxdan difaac ay ku jirta, adiga ayaa laga rabaa inaad ka soo saarto, sababtoo ah adiga ayaa raba horyaalka inaad ku guuleysto ama meel fiican aad tagtid oo dhibcaha aad qaadato. marka Amaron waa tababaro ku dhisan difaac ku dhisan waay, marka koox difaac ku dhisan koox kaloo difaac ku dhisan difaac kama soo saari karto. taas ayaa waxay keentay in meeshaas uu guuldarro uu la tago, gurigiisana uu kula tago guuldarro aad u xunayn. waxaa la soconaa kooxdii Gripsi la dhahay oo ka saartay koobkii Carling Cup in ay ka xanuun badan tahay tan Everton, inay ka xanuun badan tahay oo runtii Old Trafford ayagoo joogo hal ciyaartoy laga saaray xilli hore in laga adkaado arrin aad iyo aad u liidato. haddii aan ka gudbo Manchester United iyo Everton, waxaan rabaa inaan u gudbo Barcelona iyo Chelsea ciyaarta caawa dhex mari doonto. Chelsea runtii waxaan qabaa inay tahay koox aad iyo aad u fiican dhalinyaro ah. ciyaartii Burnley labadii eberka uga adkaatana inay ciyaartoy fiican ay fadhiisiyeen, dhexdoodan waxaan qabaa inay la dagaalami karaan dhexda Barcelona, inkastoo laga farsan baday haddana physical ahaan ama xoog ayay kula ciyaari karaan oo Concedo ayaa joogo, Bruno waxaa kaloo joogo waxaa jooga Fernandes joogo oo Argentina oo dhexda ka dheelo, waxaa kaloo dhexda soo geli karo ciyaaryahankan Reed James oo numberka 2 ka dheelo, Gusto Malana numberka 2 ayay gey doonaan. laakiin waxaan isleeyahay dhibaatada ugu weyn oo heli doonto waxay tahay Yamal sidii loo celi lahaa. waxaan qabaa Yamal in la celi karo ayaan qabaa, oo waxaan isleeyahay Reed James inuu celi karo ayaan isleeyahay, ama Gusto Malana inay celi karaan, isku bedeli karaan labadooda ayaan isleeyahay. oo haddii ciyaaryahankaas Yamal ay iska xakameeyaan, waxaan fili doonaa inay meeshaas ay guul ay ka keeni karaan kooxda Chelsea oo niidooda aad u fiican tahay, inkastoo haddana ay ku soo socoto Arsenal ku soo socoto, laakiin waxay u noqon doontaa niyadooda moralkooda ayaa dhismi doona hadday Barcelona ay ka adkaadaan. Barcelona runtii weerar ayay soo qaadi doontaa, haddii kubadda laga gooyana runtii waxaan qabaa inay gooltaa oo waxay haystaan ciyaaryahana geesaha ka dheelo aad iyo aad u fiican. Joe Pedro ayaa joogo dhinacaasna, wuxuu ilaali doonaa dhinaciisa waxaa saaran ciyaaryahankan Yamil ayaa saaran. Joe Petrona physical minti iyo orod markii la dhaho aad iyo aad u fiican. waxaan qabaa inuu difaacana caawin karo, weerarkana oo ka qayb qaadan karo. dhinaca kale Garnacho ama Jitin ayaa la keeni doonaa, labadaba aad iyo aad ayay u fiican yihiin. keydkoodana muxumo oo wiilkii yaraa Brazilianka Esteban ayaa u jooga oo laftigiisa dhinac ka dheelo. marka aniga waxaan qabaa waa ciyaar ay Chelsea ay badi karto haddii si taxadar ay ku yimaadeen oo difaacooda aad iyo aad u adkaystaan. waxaan isleeyahay ciyaartan waa ciyaar labada dhinac u dhici karto, laakiin ani ahaan waxaan isleeyahay waa ciyaar Chelsea ay guuleysan karto, taasna niyadeeda ay ku dhisi karto ciyaarta Axadda ee Arsenal ku soo socoto, taasoo ciyaar aad iyo aad u weyn ah ay niyadda ku hayso. waa 2 ciyaar oo aad iyo aad u culus ayaa ku soo socota. Chelsea waxaan ogaa doonaa hadday koox tahay tartamayaasha ay ku jirto in labadaas ciyaarba inay guul ay ka keento. waxaan qabaa Chelsea in Barcelona ay celi karto oo garbaha haddii iska celiso. waxaa aad ugu daran garabka oo Yamal ayaa ugu daran. haddii ay qof oo Reed James oo celiyo ama Gusto Malana oo qof u celiyo, waxaan qabaa inay guul ay gaari karaan. laakiin hadday noqoto 2 iyo 3 in lagu celiyo, waxay noqon doontaa kooxda inay gadaal ay gasho, meeshaasna gacanta sare ay yeelato Barcelona, sababtoo hal ciyaartoy markaa 2 iyo 3 ku raacdid, dhinaca kalena 2 ku raacdid, dhexdina Pedro iyo ciyaartoy aad u fiicanaa joogo. marka ciyaartoydaada dhexda way mashquulayaan oo geesaha ayay caawinayaan. markii Concedo iyo Fernandes ay geesaha caawinaan, dhexdii Barcelona xur ayay noqon doonaan, meeshay rabaan ay kubadda ay u dhiibi karaan, si kasta ay u maamuli karaan. taas ayaana keenayso Barcelona waxaan qabaa inay tahay koox kubad isku dhiibidooda aad iyo aad u fiican tahay, difaacoodana kubad dhiibidooda ay aad u fiican tahay. meesha Chelsea ay xoogaa ku adag tahay inay kubadda iska soo saaraan, ay si xarar kale iskaga soo bixiyaan. marka laakiin waxaan isleeyahay waxay u dhici doontaa waa ciyaar ay Chelsea ay guuleysan karto. markaan fiirino ciyaartii ugu dambeysay ee Barcelona ee Champions League oo laga soo adkaaday, marka waa ciyaar aan dhihi karo Chelsea ciyaartoy tayo leh inay haysato,
ay uga adkaa karto Barcelona. runtii Barcelonadii hore oo awoodda badneed ma aha markii laga reebo Yamil Yamal. marka waxaan aniga fili doonaa caawa Barcelona in laga guuleysan doono. adiguse maxay kula tahay caawa Barcelona iyo Chelsea dhankay u dhici doontaa? midda kale Manchester United Amaron mayaha tababare ma United dib u soo celi karo mase arrintii xala ku dhacday awgeed ma aha tababare dib u soo celi karo kooxda Man United? bal fikradaada nala wadaag. ciyaaraha Champions League caawa dhici doona sidii adiga kuula muuqato kooxaha guuleysan doona iyo dhammaan iyo ciyaaryahankii Idris Gaya oo cudurdaar ka sameeyay qaladkii oo sameeyay oo ciyaarta markay dhamaatay kadib qolka darbedelashada kooxdii iyo taageerayaashii iyo dhammaan Everton arrintaas ka cudur daartay ballan qaada mar dambe inaysan dhici doonin. runtiina waa ciyaaryahan edable ayuu ahay oo wadanka Senegal u dhashay, waana nin muslina sida aan ognahay. marka runtii qaladaad uu dhacaa ciyaaraha markii la dheelayo, laakiin qalad weyn ayuu ahaa inaan saaxiibka oo garoonka ugula jiro inaan intaasoo taageero adduunyada laga fiirsanayo inaa qaladkaasoo kale aad gashid. laakiin kubadda cagta wax walba ayaa ka dhaco, wuuna ka cudur daartay. marka xaaladahaasoo dhan siday kuula muuqataa? bal falcelinta nala wadaag.